shucuubaha caalamka waxaa ugu nasiib daran kuwa la gumaystay inta damiir kalena waxay u guntadaan siday uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga waana sababta ay xorriyadoonku u noqdaan kuwa ugu qiimaha badan bulshada dhexdeeda. ummadda Soomaaliyeed waxay qarniyo dagaal kula jirtay gumaystaha Abyssinia waxayna helidda xorriyaddeeda u horeen naf iyo maal wixii ay heli kareen ama ay haban kareen. inkastoo aynan helin xorriyaddii muddada dheer aan baadi goobaynay haddana maanta waxaan haysanaa fursado dahabi oo aan horey noo soo marin. waxaan maanta haysanaa dawlad u taagan difaaca qayimka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed lana xisaabtami karta awoodda sare ee aan ku hoos jirno. waxaa sidoo kale maanta hal miis wax ku wada cunaya walaalihii la isku dilayay ee muddada dheer midba midka kale dhiiggiisa uu haliilayay. dhanka kale waxaa deegaanka maanta ka hirgalay nabad caam ah oo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay ku naaloonayaan. waxaan horaan u soo marnay waqti lagu qiyaasi kara qiyaamo yar waxaana ina soo gaaray dhibaatooyin iyo dharbaaxooyin aan la qiyaasi karin. bulshada Rabbi ka soo samata bixiyay mid ka mid ah halaagii ugu xumaa ee muddo ka dhaca adduunka. waxaa la gudboon inay Alle ku xamdido ilaashato waxa ay haysato raadisana waxaa ka maqan kana feejignaato boholaha khayaano iyo dabinnada loo qoolayo. ummadii dhowr iyo 20 bilood ka hor la adoonsanayay iyadoo meydkeeda tunka ku wadata haddana mahad sheeganaysay ee kuwii sidaas ku sameynayeen ay ahaayeen kuwa iyaga la dhashay oo aan innaba wax naxariis u galaynin. odayaashii iyo madaxdii dhaqameedkii la soo istaajinayay saxaafadda ee lagu qasbayay inay ku hadlaan waxyaabo dhaqanka iyo diinta suubanba ayna ka raalli ahayn waxay maanta dib ugu noqdeen isqabqabsi sokeeye iyo inay dhexdooda bilaash ugu daadiyaan dhiigga qaaliga ah ee ummadda Soomaaliyeed. intii ka soo badbaaday gacantii naxariista darayd ee dawlad ku sheegay waraabaha ahayd waana shaqada ugu weyn ee dawladda maanta jirta daminta coladaha sokeeye ee gacan ku rimiska ah. inkastoo ay dawladdu ka gaabinayso in ay tallaabo adag ka qaado kuwa xaabaynaya coladahaasi. waxaa jira siyaasiyiin horkacaya colaadaha ehliga ah kuwaas oo doonaya inay ku gaadhaan martaba siyaasi ah jaranjarana ay ka dhigtaan isku dirka dadka walaalaha aan marnaba kala maarmi karin. waana kuwii shalay magaca ku yeeshay gumaadka kuwa ay maanta doonayaan inay ku awrkacsadaan kuwaas oo doonaya inay bulshada dib ugu celiyaan qarniyadii jaahiliga ahaa. haddaynan fursadaha dahabiga ah ee maanta ina hor yaalla aynan ka faa'iidaysanin waxaa hubaal ah in mar kale la inagu sallib waraabayaal afka u kala haya bidda dhiigga shacabka Soomaaliyeed haatana inagu hareeraysan. dhammaanba shacabka Soomaaliyeed waa dad isku dan iyo duruufa dalkeennuna waa ina wada deeqaa baaxad iyo nacfiba waana in aan u guntannaa dhammaanteen in aan raadsannaa xaqeenna iyo xuquuqda inaga maqan. xanaasiirtii TPLF u ahayd gacanyaraha ee ku naaxday gumaadka shacabka Soomaaliyeed ee birmageydada ah dhag duleesho uma laha hadalladan waayo waaba kuwii Ilaahay u naga xoreeyay.